Sheekadeenna maanta waxay ku saabsan tahay islaantan oo ah islaan aad u arxan daran oo carruurta oo aan lahayn wax carruura ayaa waxa ay helaysaa gabadh yar oo soo luntay. Gabadhaasi yar oo ka soo luntay hooyadeed. Gabadhan ama islaantani waa islaan aad u arxan daran, mana naxdo, carruurna ma laha, waxa qaba oday yar oo miskiina. Gabadhii waxa ay dariiqa ka heshay inan yar, waxayna ku tidhi halkeed ka timid, xaggeedse ku socotaa. Gabadhii yareed waxay ku tidhi waan soo lumay oo hooyaday ayaan raadinayaa ee hooyaday maad ii geyn. Kadib intii faraxday ayay tidhi haa anaa kuu geynaya hooyada ee aniga isoo raac, anu waan garanayaa hooyada. Been bayna u sheegaysaa, waxayna doonaysaa in ay gurigeeda geysato oo ku shaqaysato. Kadib gabadhii yareed waa ay soo kaxaysay, gabadha yarina waa ay rumaysatay. Laakiin bal waxaan eegi doonaa sida ay ula dhaqanto islaantan arxanka daran li. Gabadhii yareed hadda waxa ay geysay gurigeedii, waxa ay ku tidhi haddaad gurigeyga soo gashay ogow waxa aan ku idhaahdo mooye wax kale ma maqli kartid. Iminka laga bilaabo aniga ayaad ii shaqaysaa. Aad ayayna ugu hanjabtay inantii yareyd. Gabadhii yareed oo aad u naxsan ay islaanta waxay ku tidhi halkaasaan kuu fadhiisane shaqee, si degdegana u shaqee. Gabadhii yareyd iyada oo ooyeysa ayay iska shaqaynaysaa oo ay khasab ku shaqaynaysaa. Islaantani waa islaan aad u arxan daran, carruurna ma aysan dhalin. Gabadhii yareyd sidii ayay guriga uga shaqaysaa oo waxa ay u shaqaynaysaa islaantani. Islaantani waxay ku tidhi haddii aad halkaa ka dhaqaaqdo ama shaqada aan qaba ku idhaahdo aad qaban weydo waan ku garaacayaa oo ul bay dul haysataa. Waxay ku tidhi waxaan tegayaa qolkaasi kale, adigu waa inaad si khasaba uga sii shaqaysaa qolkani. Kadib gabadhii yareed aad ayay u lulootay oo ayna iska jiibsatay markii ay daashay, ileen waxay qabatay shaqo ayna hore u qaban jirin. Iyada oo aad u niyad jabsan oon garanaynin waxay nolosheedu ku dambeyn doonto iyo meesha ay ku dambeyn doonto iyo inay islaantani ay dili doonto ayaa waxa ay samaysay ayaa ay iska jiibsatay oo waa ay seexatay. Islaantu waa islaan arxan daran oo og ilmaha yar markuu shanqadha joojiyaba in uuna shaqadii wadin. Kadib waa ay soo socotaa islaantii, waxayna u soo socotaa waa dhanka gabadha yar. Gabadha yarra waa ay iska huruddaa oo war uma hayso islaanta soo socota. Kadib way soo dul istaagtay iyadoo ushii sidataa, waxayna ku tidhi maxaa ku seexiyey, kac gabadhay, maxaa ku seexiyey nayaahe, ka kac meesha. Suni ku idhi shaqee, waa maxay hurdadani. Kadib gabadhii yareyd oo iska jiifta oon hore u maqlayn ay islaantii ku qayliday ku tidhi kac nayaa, waa maxay hurdadan aad jiiftaa. Suni ku idhi guriga ka shaqee, waa maxay meeshan maxaa ku seexiyey, yaase ku yidhi jiibso. Kadib gabadhii yareed oo aad u naxsan ayaa soo booday oo soo salaltay. Gabadhii yare markii kor u soo booday ee ay ka soo booday meeshii ayaa aragtay islaantoo dul taagan oo ka dul qaylinaysa oo islaantu ku leedahay shaqee baan ku idhi ma seexaan ku idhi. Inanta yar waxay ku jirtaa nolol aad u daran. Islaantu waxay u dirtay alaab gurigaas dhex taalla oo nooc walba leh, waxayna ku tidhi dhammaan waa inaad nadiifisaa oo aad ka shaqaysaa, khasabna weliba aad kaga shaqaysaa. Haddii aad diiddo ama aad iswaalwaasho waxay u hanjabaysaa in ay garaaci doonto ama ay dili doonto gabadha yar. Gabadha yarna iyadoo aad u murugaysan oo ciil iyo tiiraanyo la nool ayaa waxa ay samaysaa wax wal oo loo diro ama ay qabataa hawl wal oo ay islaantu u dirto. Si wal oo ay u daasho haddana waa khasab inay hawshay qabato. Gabadha yar haddaba hooyadeed waa gabadhani, waa ayna ka luntay ilmaha yari oo magaalada ayay ka raadinaysaa hooyadeed. Waa gabadhaasi hooyadeed halkaas socota oo waxa ay raadinaysaa gabadhan yar ee islaantu gumaysanayso. Gabadhii yareyd oo shaqaynaysa ay soo dul istaagtay islaantii, waxa ay ku tidhi maadiga si fiican ba u shaqeeyey, waa maxay alaabtan weli is dhex taallaa. Kadib inantii yareed waxay tidhi hooyo waan shaqeeyey oo waan daalanahaye, aad baanan u daalanahaye, hooyahan iska yar naste ee alaabtu way badan tahee ma yar fadhiistaa. Kadib waxay ku tidhi lagama yaabo inaad fadhiisatee, degdeg u shaqee, haddii kale waan ku garaacayaa. Kadib gabadhii yareed waxay tidhi haye waan shaqaynayaa hooyo ee ha i garaacin. Kadib islaantu waxay ku tidhi kuma garaacaya haddii aad si fiican u shaqaysee, dhaqsiyo u shaqee.
Inanta yar waa ay daashay runtii, waa ilmo yar oo aad u naqan oo aan lahayn awoodda uu wax ku qaban lahaa, waxayna u diraysaa ilaa 5 ilaa iyo 6 qol. Islaantii arxanka darreed waa tan mar kale u soo qaadatay ilmihii yaraa ushii, waxayna eegaysaa inay shaqaynayso iyo in ay seexatay. Islaantu intay hurdo soo seexato oo iska soo kacday ay hadda eegaysaa ilmihii yaraa waxa uu qabanayo. Gabadhii yareed waxay go'aan ku gaadhay in ay baxsato, waxayna sii cararaysaa qayb ka mid ah guriga xaggiisa dambe, waxayna doonaysaa in ay ka baxsato islaantii oo ay ka orado. Watan gabadhii yareed waxayna isku dayaysaa in ay saa ku baxsato, laakiin waxaa si kedis ah uga hortimid islaantii, waxayna ku tidhi waan ku arkayaa, waxaad doonaysay soo maaha in aad baxsato oo aad cararto. Kadib gabadhii yareed waxay tidhi maya, waan iska joogay daaradda oo ma aan baxsanayn ee halkan ayaan ku ciyaarayay. Kadib islaanta waxay ku tidhi ma inaanan ku fahmayn baad moodaysaa, waxaad rabtay inaad hooyada u tagto ama in aad baxsato. Waxay ku tidhi lagama yaabo sheekada, wayna kaa soo xidhantay albaabkaasi, si degdeg ah u laabo oo waxa aad samee aan ku dhahdo samee, maanta waan ku garaacayaa. Kadib gabadhii yareed orod ayay haddana isa sii daysay, waxay u tagtay odaygii qabay islaanta, waxayna ku tidhi gabadhan aad qabtaa aad ayay ii garaacday adeero, waa ayna i dilaysaa, waana igu shaqaysanaysaa, adigana been bay kuu sheegtaa, waxay ku tidhaahdaa inantan yar, adigana been bay kuu sheegaysaa, waxay ku odhanaysaa waxba ma weydiiyo, waa ilmo yar oo fariida oo aniga ayay ii shaqaysaa, wax lacagna iguma siiso. Odaygii ayaa ku yidhi haye hadda ayaan arrintaada gelayaa oo aniga ayaa kaala hadlaya. Odaygii wuxuu u sii socdaa dhinaca iyo gurigii gabadhiisa, wuxuuna doonayaa ilmaha yar ee ay aadka u garaacday in uu kala soo hadlo. Hadda gabadhiisii ayuu u tegey, wuxuuna ku yidhi ilmahan yar maxaad weydiisaa oo aad u garaacdaa maalin walba, iyadoo ooyaysa ayaan maqlaaya. Kadib waxay ku tidhi maya, waxaas wax jira maaha, mana taabto, mana garaaco, waxna ma weydiiyo, mana uleeyo, umana diro shaqo badan, ee iyada ayaa iska kibirsan oo doonaysa inay baxsato ama ay cararto, lacagna waan siiyaa, wax walbana waan siiyaa, waa inay iska seexataa ayuu ku tidhi odaygii. Odaygii ayaa yidhi maya, been ayaad sheegaysaa baan filayaaye, inanta yari waxaa ka muuqda nabarro badan, nabaradan in adigu ku dhufatay ayaa laga yaabaa. Hadda haddii hooyadeed kuu timaado, wuxuu ku yidhi way ku xidhi doontaa, waxayna ku geyn doontaa saldhigga, cidna kaama soo dayn doonto ilmaha yar daa. Gabadhii yareed hooyadeed waxay u tagtay booliskii, waxayna ku tidhi gabadhaydii yareed waxaa la iigu sheegay in ay haysato islaan halkaa ku nool oo aad u arxan daran, markaa waxaan doonayaa in aad gabadhayda yareed iiga soo kaxaysaan islaantaasi aadka u arxanka daran leh, haddii kale ilmahayga yaraa way i dilaysaa, saas ayaana la iigu sheegay, hadda si degdeg ah ha la ii raaco oo ha la ila soo kaxeeyo ilmahaygii yaraa, ayay ku tidhi ninkii booliska ahaa. Ninkii booliska wuxuu ku yidhi arrinkaa haddaad hubto hadda ayaan ku raacayaa, aniga ayaana ka soo kaxaynaya, ma hubtaa? Haa ayay ku tidhi. Kadib inantii yarayd ayay ku soo noqotay maadaamay ku dirtay odaygii, waxay ku tidhi maxaad iigu dirtay odayga, maanta waxay ku tidhi nafkaaga ma kacayo, waana ku dilayaa, weliba toos ayaan kaaga dhammaynayaa oo wax lagama yaabo in ay nololi kuu dambayso. Kadib inantii yareed oo aad u ooyaysa ayaa tidhi ha i dilin. Kadib waxaa si kedis ah gurigii u soo galay gabadhii iyo booliskii, gabadhan oo ah gabadhii dhashay ilmaha yar iyo ninkii booliska ahaa. Kadib islaantii ayaa argagaxday oo kor u booday, kadibna waxay tidhi anigu ilmahan yar waan ilaalinayay oo wuu ila joogay, maxaad doonaysaan? Ninkii booliska baa ku yidhi tuugad ayaa tahay oo adiga ayaa soo xaday. Wuxuu ku yidhi
gabadha yar hooyadeed waa tan, caddayntiina waan u haynaa, adigu tuugad ayaa tahay, carruurtana waad soo xaddaa, hadda saldhigga ina gee oo ina dhaqaaji ayuu ku yidhi. Gabadhii sidii ayuu ku kaxeeyey oo uu ku xidhay. Gabadhii yarayd iyo hooyadeed hadda waa kuwa halkaas socda oo waxa ay tegayaan waa gurigoodii oo uu joogo inan yar oo kale oo ay islaanta gabadhan ay dhashay. Hadda gabadhii iyo hooyadeed iyaga oo faraxsan ay dariiqa marayaan, waxayna si toos ah u tegayaan waa gurigoodii. Gabadha yar hooyadeed oo halkaa taagan, labada ay carruurtahayna waa kuwan, waxa ay maanta heshay waa walaalkeed oo ay la faraxsan tahay. Halkaana waxay kaga raysatay islaantii axmaqada ahayd.